kala guurka geeska Afrika damaca gaamuray iyo gucundooyinka aasan ee gumaystayaasha galbeedku ay dhigteen iyo ujeedooyinka iyo qorshayaasha kala dambeeya ee ay kala yihiin wax heshiis lagu sheegay ama loo magac bixiyay Addis Ababa lagu sheegay arrinkaasi waa qorshayaal kala dambeeya oo raaba oo midba waji gaar ah u leeyahay wajiga gaarkaana cidda hadarkaysa maahine cidda ka dambaysa ayaa cidda hadarkaysa soo adeegsanaysa horta geyigan Soomaaliyeed waad ogtihiin hagardaamooyinka iyo dhibaatooyinka ka taagan mahadooyinka iyo miidhada uu kaga tagay gumaystihiisaan caddaha ahaa ee galbeedka Ingiriisku kow ka yahay ama Ingiriisku kow ka ahaa qarnigii 18aad ilaa imikana waxa socdaa waa aafooyinkii iyo eelkii uu dhigay oo mahadooyinkii iyo micigabaaraydii baa aasan oo kolba midina mudaysa warkeyga waynu haynaa oo kunkii sanadood u dambeeyay duulaan bay ku ahay degalka Soomaaliyeed dadahooga iyo barigoogaba hasaahate cid ka hirta ayaa intaas oo dhanba jirtay oo joogtay oo waqtigay doonto iyo waayahay doonto ku qaadato kala kulantay deg u hardamaysay oo hiil iyo hooba u horeysay dhulkeegaasi ay u ilaashato ciidina inagayna soo gaarsiiso mas'uuliyadda maanta ay saaran tahay waa bulshada Soomaaliyeed intii damiir leh waxaynu halkan kaga hadlaynaa qodobo door ah oo kala dambeeya iyo cidda dabinada ah 1 January bishii koowaad 2024 sanadkan imika bishiisii tobnaad aynu ku jiro waxaad aragteen ogtihiin ama maqasheen si dadban iyo si daahirana ula socotaan warkii Addis Ababa ka soo baxay iyo ujeedada laga lahaa iyo waxa uu yahay laga damacsan yahay intaba lagu dhawaaqay cidda ku dhawaaqday marka ay goobjoog ahayd labada dhinac ee kala duwan ee marka goobjoog ahaa arrinka lagu dhawaaqayay labadaasi matalayaal bay ka yihiin arrinkaas ahaatee cidda daaha dabadeeda ka maamulaysa sheekadan waa cid si xeel dheer u soo agaasintay mashruuca iyo damaca ay halka ka leedahay Itoobiya horta warkeyga waynu haynaayo sanadkan aynu ku jirray 2024 iyadiiba daala dhacaysa oo dalanbaabiyo oo 150 jabhadood ku furan yihiin dawladda Itoobiya ee lagu sheegaya Addis Ababa iyo magaalada Jigjiga kaliya ka shaqaysayo amaradeedu intaasay wax ka qabtaan ama ay ka fulaan laakiin deegaan kale oo qoomiyad kale leedahay maanta oo dawladda Itoobiya ay ka shaqay meel walbana jabhadaha ka furan maamulada kalena sida kan Soomaalida ma yihiin dantooda cuntamadaadeen waxay hagaag uga shaqaysay waa kililkan Soomaalida iyo Addis Ababa sida ogeed Itoobiya awood ay iyadu damacaasi maanta si dadban iyo si daahiraba ugu tooqdo ama ay u sheegto may lahayn oo waynu ka warqabnaa mikra waarugnahay arrinkan daaha dabadiisa ayaa laga maamulayaa Itoobiya maamulkan meesha joogay isaguna heshiis baan la saxeexday lahaayee tagay labaduba waxay ka yihiin aalad la adeegsanayo arrinkan kow waxa lahaa gumaystaha iyo arrinkan soo abaabul dabinadan aasan arrimahan kala dambeeya iyo qorshayaashan isku daaban ee lagu dhawaaqay sanadkan bishiisii koowaad waxa arrinkaasi curinteeda iyo hal abuurkeega lahaa gumaystaha gaamuray ee godobta weyn geyiga Soomaaliyeed iyo Afrikaba ka galay sida ay u badan tahay ee Ingiriiska loo yaqaano inka isaga curintiisa lahaa wuxuuna u soo wakiishay arrinka Imaaraadka oo fangareynay arrinka wuxuu soo wakiishay Imaaraadka oo Imaaraadka waad ogtihiin falalka shaydaaniga ah ee uu ka wado wadamada muslimiinta iyo inuu masiibo quuta yahay dhiig miirata
wadamada islaamka gubaya isaga ama faraha kula jira ama cid kale wakiil uga yahay wadamada islaamka isaga faraha kula jira geeska Afrikana dekad aanu isagu gacanta ku hayn inay dhaqaaqdo ama ay shaqayso ma doonayo Liibiya waxa uu ka sameeyay waad ogtihiin Suudaan waxa uu ka sameeyay waad ogtihiin dekadaha geeska oo dhan inuu gacanta ku dhigo ayuu doonayaa ila tiriyeen isaga gacanta ku haya Jabuuti waa ku isdiiday ee dekedeeda inuu gacanta ku dhigo doonayay dekada Berberaad waad aragteen oo isaga haya Boosaaso waad aragteen Kismaayo dekedeeda waad aragteen wax aan isaga gacanta ugu jirin oo dekad ah ama dhaqdhaqaaqa oo nolol bulsho kale ay leedahay gaar ahaan gayigan Soomaaliyeed inay dhaqaaqdo ma doonayo farti dhaqaaqda inuu isagu kow ka ahaado doonaya hadii aanay ahayn inuu gubo oo kooxay isaga ka wakiil ah oo u diro mabduucina aanu soo noqon arrinkaasi Ingiriisku Imaaraadku u soo wakiishay Imaaraadkuna Abiy Ahmed buu u wakiishay Abiy Ahmedna ninkan bixi la yiraahdo soo wakiishay qorshu saasi isku daaban yihiin oo ay u kala dambeeyaan halka inaad fahanteen baan rajaynayaa xoga